السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada kanaalkeena kooxda macluumaadka. maanta barnaamijka aan idin sido walaalayaal waxa weeyaan barnaamijka halkan idin ka muuqda oo loo yaqaano saad u jeedaanba reg organizer ama registry organizer loo soo gaabiyey. barnaamij aad u muhiima wuxuu leeyahay waxaa ka mid ah very powerful uninstaller buu leeyahay, sidoo kale wuxuu leeyahay registry cleaner, windows optimizing. maanta wuxuu leeyahay feature badan oo aad muhiim oo ay yar tahay in hal application soo koobsado. waa barnaamij runtii useful oo saan jeclahay haddii aad isticmaasho wax badan ka caawinaya. balayno aan haddaba applicationka isku dayno inaynu furno. hadda waa raarsad ujeedaanba webajir ayaynu click odhanaynaa. sidan ayuu noogu soo baxaya applicationku oo ah waraaqdan ay ku qorantay text document oo uu ku jiro koodhka ama serial numberka aynu ku activate garaynayno ee full version ah. gaacayno applicationka waa kan sad ujeedaanba .exe reg organizer aynu laba jeer riixno ama click nidhaahno laba jeer. yes aynu doorano. wuxuu inaydiinayaa welcome to reg. inaga sida aynu odhanaa welcome to the reg organizer sada wizard. inaga sida aynu odhanaynaa accept baan odhanaynaa. inaga sida baan odhanaynaa. hadda wuu ku duubayaa computerka. saa ujeedaanba halkaa waa ka sameeyey shortcut yara ayaan kusoo keen lahayn programka ama iconkiisa waa ka keenay. finish aynu idhaahno. haye tan sare ayaynu dooranaynaa. serial numberkan aynu copy ka qaadanaynaa. kadib tan waa isku soo laabaynaa. kana suugan waa isku soo laabaynaa. waa kan applicationka interfacekiisa waa sidan ayuu yaalaa. hadda wuxuu kuu sheegay waxaad aragtaanba inuu ina leeyahay halkan registrygaaga problems 119 problem 119 problem baa xagga registryga computerkaaga ka jira oo kaas weligii lama optimize karayn. waxbuu kuu sheegaya wakaan registry optimization has never been performed. sidoo kale halkan wuxuu kuu sheegayaa chunk fileska computerkaaga ku jira oo uu sheegayo inay ugu yaraan yihiin 1.5 GB inay ugu yar tahay markaad. sidoo kale wuxuu inoo sheegayaa barnaamijyada la soo kaca ama softwarada la soo kaca computerku inay ok yihiin. halkana wuxuu kaga hadlayaa un optimization kala duwan oo ah system iyo internet iyo system speed optimization. haddaba banayno application ka dhigano full version. halkaas help ay ku qorantay ayaad ku dhufanaysaa. waxaad kasii dooranaysaa enter the license key. waad aragtaan baan filayaa intaas ayaad kasii dhufanaysaan. halkan ayaynu basti ku odhanaynaa. keygii aynu siinay wakaas 10 your key is accepted. wakaas keygaaga waa la aqbalay buu yidhi markiiba. okay aynu doorana. hadda saynu ujeednaba barnaamijku waa inoo full oo wax license inama weydiinayo waayo waynu gelinay. haddaba aan isku dayno balaynayno tan ku horeyno oo diska kaleynaad aynu chunk fileska ku saarayno. run baan odhanaynaa. hadda waxaad arkaysaan inuu baadhaayo fileska ku jira. waad aragtaa ma filaya xasaan buu saarayaa mid walba xasaan buu saarayaa marka uu dhameeyo. runtii waqti ay qaadanaysaa marka uu dhameeyaan isku soo laabanaynaa. hadda saa ujeedaanba waa uu dhameeyey. wuxuuna leeyahay 1.6 GB ama 3936 item aya oo chunk files oo ku jira ee iska saar. waa kan perform cleaner perform baan odhanaynaa. hadda si toos ayuu nooga saaraya. wada ujeeda ma filaya kan runtii waxaad moodaa inay waqti qaadanayso. marka uu dhameeyo aynu isku soo noqonna. hadda saa ujeedaanba waa uu dhameeyey. wakaa dhan disk expect waxayna disk space free 1.6 GB. okayna waan saarnay. okay baan odhanaynaa. aynu kan sare isna aadno oo ah run registry check. balaynu isna
ku dhufano soo jeedaan waa kan programmadaada ayuu baaraya registrygooda iyo waxyaalaha ka qaldan application aad saartay haddii ay registry iyo wax kaaga tageen sidoo kale kuwa kugu jira haddii wax ka qaldaneen oo ay u baahan yihiin computerku in defrag wax la yidhaaho lagu sameeyo oo filayo inaad wax ka garansaan ama taqaaniin haddii halkaa ujeedaan problem okay nala installed programs 12 problem softwarada aad dibadda kaga soo shubtay computerkaaga 12 baa ku jira wakaas kan hal problem baa ku jira sidoo kale kuwan 7 problem 8 problem ahaan waa barnaamij ay tahay inuu qof walba isticmaalo oo aad iyo aad essential u ah barnaamijkan linkiga aad kala degi lahaydeen waxaan idiin dhigayaa description-ka waxaad moodaa inay waqti qaadanayso saan jeclahay markaas markuu dhameeyo ayaan isku soo noqon doonaa hadda saa ujeedaan waa u dhameeyey wuxuuna leeyahay 602 problems ayaa ku jira kaas aynu soo nidhaahno fix kaas hadda markiiba waa u dhameeyey aynu haddaba eegno hadda kaana waa u dhameeyey saa ujeedaan aynu defragment eegno runaantii halkana waa halkaad computerkaaga defragment ee haddii qolkaaga sido yar khalkhalsan yahay aad uga dhigi lahayd mid sidii uu tooska ahayd noqdo oo waxaa jira foldaro iyo faylal isku dhex qasma oo applicationada registrygooda ka mid a markaas ay sometimes ku dhacdo inuu programmadu kaa habsaamaan soo kicistooda kale oo loo baahan yahay inaad isagoo defragment noqdo fragment ka dhigtid ama defragment ka dhigtid waqtaasna hadda we don't need uma baahnin anti application ku xulay waa kan sanishigi full powerfull and installing soo jeedaan waa kan wixii application kugu jira hadana kugu soo qabanaya sidoo kale si very powerful ayuu kaaga saaraya application aad u baahantay inaad ka saarto soo jeedaan application ka dhamaanna maaha waa application aad iyo aad u muhiim ah oo filaya inay fiican tahay inaad isticmaashaa waa ka soo jeed new tweaks waa application very essential ah aan jeclahay inaad isticmaashaan oo aad ila eegtaan hantii feature badan buu leeyahay we don't need uma baahnin waa casharkeena maanta intan ayuu ku yahay casharkan ku xigana wuxuu noqon doonaa sidii aan casharka hore ku sheegay sida Windows-tanka loogu diro ama loogu daaro safe mode haddii cilad ama program ku diido inaad soo kiciso computerkaaga ama computerkaagaba bootkiisa wax ka khalkhalaan oo hore kugu sokay waayo sida aad safe mode ku daar lahayd kadib wixii aad malaynayso in problem keenayaan uga saar lahayd oo casharkeena kan ku xigaa noqon doono ama repairing baad computerka ugu diri lahayd intaana cashar ku xiga sugan doono waanigay kooxda macluumaadkoodii السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.